السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنرال B3CS maanta waxaan rabnaa inaan sharax methodska lagu xalin karo differential equation iyadoo la joogo first order iyo first degree. waxaa jira afar method oo lagu xalin karo differential equation first order iyo first degree. midka koowaad waxa waaye waa variable separable. variable separable macnaheedu waxa waaye variableska in loo kala qaado as x and y. هذه variables لو قلنا fy dy equal fx dx لو يقنا variables separable. طبعا هو homogeneous أو أحسن in variables لو قاتو سيدا عند let y أو قادتي vx أو كله dy أو قادتي v plus v dx plus x dv variable إن لو قاتو ساس لو حلين ميثودز. midka saddexaadna waxa waaye linear differential equation. linear differential equation asna waa mid loo qori karo dy of dx plus dy equal q in q-daada dy-daada lasoo saaro saas methodka lagu xalin. midka saddexaadna waxa waaye exact micnaha labada gees in laga dhigo exact wax isku mid ah laga dhigo oo asna loo qori karo 2m divided by 2y equal 2n divided by 2x. يعني هذا وحياي شيء انت حقو انه لم نقول انت هذه انه مش راح كسوبح x and y حقنا راح كسوبح x and y. so فيديو بحاجة شرح دونا ان شاء الله من الصعب. كان أفضل نسوي سبسكرايب قريب وما حسنتهاي دعوة شغال.